السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين ولا ليال سودو هذا. ما أنت وحنا هالكلام كل وذاك يا شركة هداد بلوديد أدسلعاو أما بريبة معامل وهلي كرتيد. مالين كستبغل دولار أو فايدة أتكسو ساري كرتيد يكبضن مجالك كستنا لاجيه الجلين كرو كان مد جناعسية مركز تمعاميش له السوق تشوك تدعو هليسيد evergreen business جناعسية الله يقانو جناعسية مركز السوق معاميش كله. شركة داسي ولا ليال وشركة إيبسا caanaha freshka ah caanaha dhayda ah ee liska ah oo markasta laga heli karo mashiin aad u soo iibsanaysid ayaan halkan kugula wadaagi doonaa muuqaalkan anigoo safar 2025 dhamaadkiisa wadanka ku tagay marar badan marka salaada cisha laga soo baxo ama maghrib ka hor supermarket ka hada istiraad caagad caano oo fresh oo geela ka iibso caanihii oo dhamaaday baad ugu soo laabanaysaa kaba heli maysid waxaad halka arkaysaa in ay u baahan yihiin dhammaan magaalooyinka Soomaaliyeed in laga hirgeliyo shirkado noocan oo caanaha laga miisan karo caano fresh ah oo dhayo sugan oo tayo leh in markasta laga heli karo laga iibsan karo in loo baahan yahay waxaan rabaa in halka su'aal idin ku weydiiyo litirka koombada caanaha ah imsa ayaa laga siiyaa magaalada aad joogtid litirka koombada weyn caanaha ah hoos igula wadaag si gaar ayaan commentigaaga aan like kugu saari doonaa walaalayaal waxyaalaha markaan u fiirsaday sida joogtada ah loo iibsado wadanka gudihiisa waxa kamid ah caanaha dhayda geela ariga lo'da nooc kasta ha noqoto oo fresh ka aad ay dadku jecel yihiin oo iibsadaan haday tahay caruurtooda haday tahay meeladaha shaaha sameeya haday tahay kuwa cunnada iibiya caanahaasi suuqa marnaba iib kuma waayaan hadaba caqabada ugu badan ee ka jirta suuqa waa in qaabkii caanahaas tayadooda loogu hayn lahaa caano fresh oo dhay ah oo macaan aan markasta suuqa aadan ka soo helayn ama si joogto aadan u helayn waxa daba jirta walaalayaal adduunka waxa la isticmaalaa mashiino caanaha lagu kala process gareeyo mashiinka koowaad walaalayaal halkan aan kula wadaagayo waxa la dhahaa milk pasteurizer machine waa mashiin caanaha lagu yara karkariyo oo caanaha markaa ka dilaya bakteeriyada ama waxa dhadhankooda iyo carafta ama wax ka bedelaya marka laga karkariyo raw milk marka koowaad waa mashiin waxa lagu shubaa marka caanaha la soo ururiyo caanaha dhayda ah karkariya kaas oo wixii haday ku jirtay wasakh haday ku jirtay caanaha wax dhadhankooda bedelaya karkarintaas ayaa ka yara dilaysa sidoo kale waxay ku haynaysaa cimriga inay si raajiso oo caanahaasi ay fresh noqdaan caanaha dhayda marka la karkariyo muddo dheer ay fresh ama dhaysi ahaan karaan markaas caanaha wax yar la diiriyo waxa loo wareejinayaa milk cooling tank ama tangi qaboojiye ah oo caanaha 4 degree ama cimilo qabow waxa sida talaagada oo kala ah ugu haynaya mashiinka marka caanihii la soo karkariyay marka loo wareejiyo qabowga ku haynayay barafna kama dhigayo caanihii sida jalaatada oo kale xaraarad qabow oo caanuhu isku bedelin ayuu ku haynaya marka macaamiisha markay ku yimaadaan sida hadda Masar oo kale waxaad ku arkaysaa supermarketyada iyo dukaamada caadiga ah ee laga adeegto tangiga caanaha ayaa dhex yaala oo 3 litir 5 litir caano dhay ah oo fresh ah oo lo ah ay isla markiiba ku miisayaan marka inaga caanaheena marka miyiga laga soo liso geela barqamaalka marka laga soo liso banaankiiska oo laan dad kooban ay talaagada haysta qoraxdii baa ku dhacaysa duqsigii baa ku istaagaya dhadhankoodii baa isbedelaya marka hadii la heli karo shirkad caanaha isla markiiba karkarisa ka bacdi qaboojin ku haysa oo caano fresh laga helayo waa shirkadaha ugu faa'iidada badan qofkii maal gashada waxaan ogsoonahay walaalayaal hadaad tagtid supermarketka kuugu dhow ama sameherada kuugu dhow cafeteriada shaaha gadda caanaha ay kafeega ku sameynayso waa caano maraaci Sacuudiga ama Carabaha ama dalka dibadiisa laga keenay sidoo kale hadaad u fiirsatid caanaha dadka badi ay adeegsadaan waa caano boore $100 milyan lagu soo iibsanayo taas waxa keentay baahida in caano fresh oo dhay ah suuqa gudaha aan lagu hayn marka walaalayaal waxyaalaha sameyn karno waxa kamid ah labada mashiin oo kale hadii qofku uu gato oo waliba solar haduu doono u xidho waxaan qiyaasayaa $10,000 ama $12,000 in iyaga iyo solarkooda dhanba ay ku kacayso hadii aad mashiino fiican oo tayo leh oo stainless steel ah oo grade sax oo caanaha quality-gooda aan bedelayn aad u soo iibsatid oo garantiya in aad shirkadan lacag badan ka helisid macaamiil ganacsi ah oo meherada haysta iyo xaafado labadaba aad helaysid waxaad u soo iibsan kartaa mooto deliver garaysa caanaha fresh ka ah oo xaafadaha magaalada u qaybisa
ood inaan u shaqaalaysiisid moota faycon bay dhahan reexamarka oo kale mootada fayconta imsa la siiyaa hoos nugula soo wadaaga mootadaas oo kale inta la siiyo qiimaheeda hadaad garanaysid hoos nugula wadaaga mootadaas oo kale ayaad u gadi kartaa ilaa 200 300 macaamiil magaaladaada ah oo caanaha loo geeyo maalin kasta ayaad diiwaan gelin kartaa ama lambar gaaban ay ka soo dalbadaan caano fresh ah oo isla mar 24 saacadood gudahooda ay heli karaan marka walaalayaal waxa kale ay sameyn karnaa dadka geela barqamaalka haysta dadka caanaha miyada magaalada ka keena oo kale inaad dadka inta caanaha ka sii iibsatid aad caanihii hadhowto markaa sii hormarisid oo yacni bacteria laga dilo qaboojintana lagu hayo cold storage room la dhaho qolalka qabow ee xaraarada qabow ah oo qol qaboojiye ah hadaad u dhistid adduunka waa la iibiyaa meter square ayaa lagu iibiyaa qolalka qaboojiyaasha ah iyo baanalada galaya waa iyaguna waa cilmi gaara laakiin qol qaboojiye hadaad u dhistid caanaha marka la karkariyo oo la baceeyo oo caagadii lagu shubo ama joogii macdanta ah ilaa 6 bilood bay caanaha dhay ku haynayaan iyadoo wax daawo aan lagu darin waxba lagu darin caanihiyo fresh ah ayaa qaboojintaas xaraarad 4 degree ah oo kale ay caanaha ugu haynaysaa marka adduunka waxyaalaha inada uga soo dhoofsanayna caana maraac iyo caana boode waa caanaheeni oo dhay lagu helayn oo fresh aan lagu helayn qofkii marka fikradan ganacsi dadka waxa lin kara wuxuu ka sameyn karaa isla bariba dhaqaale joogta ayuu ka sameyn karaa maalintii hadaad aad gadid maxay ahayd 100 litir 300 litir aad gadid oo 0.3 ay faa'iido ku saaran tahay waa $90 waa $100 oo wax yar la si fudud ayadna ku gadi kartaa qof baa 10 komba ka iibsanaya qof baa 5 komba ka iibsanaya meherad baa 20 komba ka qaadanaysa geel jiraha ama miyiga marka ka soo iibsatidna iyaga markasta faa'iido ayaa sii saaranaysa oo qiimo ay ka siinayaan qiimaha magaalada jooga ku hooseeya maadaama caano badan aad ka gadanaysid marka walaalayaal fikradan waa fikradaha ugu faa'iidada badan magaalo kastana ka shaqeynaysa insha Allah walaalayaal qofkii raba marka in taangiyada caanaha oo kale lala soo gado ama se qolka qaboojiyaha ah oo isagoo aan isleeyahay dadka caanaha iibinaya ama dadka kalluunka oo kale xilliga badxidanka uu qaaliyooba haddii aad qol qaboojiye aad u dhistid oo kalluunkaas 20 tan 30 tan 40 tan oo kale aad kaydisid xilliga badxidanka ah kiiladii halka door laga siiyay $4 $5 ilaa $7 ayay gaadha waa dareemi kartaa 20 tan oo من $3 $4 فايدة aad ka heshay inta kaaga soo baxaysa qolalka cold storage room ka ah oo waxyaalo badan la gelin karo kalluun ha noqoto caana ha noqoto qudaar ha noqoto waxyaalo badan fresh ku haynaya inaan maal gashano ayaan insha Allah Turkiga oo kale aan ka heli karnaa oo hadda teamka aan u diray inay bal xogtiisa soo fadhiisiyaan wala waxyaalo badan xogto la xiriido heerka ay wax ku qaboojinayaan meher qawba meher freezing ah oo baraf degdeg ah ba معبر يربا أو جناسي معبر وين با ما أنت كركا بانالله كلك كيلالنا يا لورد سيو براها لقى سمينا يو ماشين كقبوتشينا يا وحيالا بدن با يعني قيمين تدا يكون تاي إن شاء الله وحى صودن قفكي أوباهان دad badan waxa jira aan diyaar ahayn oo iska ka wareysanayo xog raadinaya oo marar badan marka saacad la hadlaysid kooranaya diyaar ma ihi laakiin sanadka dambaan wadankii aadaya ama soo diyaar garoobaya oo hadhowto waqtigii oo dhan uu energy kaaga baxayo marka qofkii isagu diyaar ah oo raba inuu ganacsigan oo kale hirgeliyo website-ka ama linkiga koowaad ee comment-ga aan soo dhigayo ayuu ballan la talin ah si professional uga soo qabsanaya insha Allah ana marka teamka u soo qiimeynaya taangiyada caanaha mashiinada waxa dhan u soo qiimeynaya ku xiraya wadankii ayaa loogu diraya shirkadan oo kalena waad ka bilaabi kartaa ama adiga ayaa soo iibsan karaa milk pasteurizer machine ama milk cooling tank adaa soo iibsan karaa taana waad sameyn kartaa marka fikradan walaalayaal waxaan jeclaan lahaa in magaalooyinka aad looga hirgeliyo caruurta caanaha ku kora dadka u baahan caana maraaciga iyo caana booraha boqolaalka milyan ee dollar ay soo siinayna waa inoo baajinaysaa wadanka gudihiisa ay dhaqaale ku baajinayna waxaan kaloo ugu dambeyn muuqaalka intaan ka tagin ku baraarujinaya lo'da caanaha badan ee European-ka ahayd ayaan wadamada dariska idinka haynaa oo insha Allah dhawaan xogtooda saadada muuqaalka ka aragtaan oo kale xafiiska beeraha ee Somleaf oo insha Allah diiwaan gelinaya oo idin heli doona qofkii raba inuu soo iibsado oo maalintii 20 litir 25 litir oo caana neefkii aad ka helaysid taana waa ganacsi kale oo qofkii beeris kale ama calaf beertay oo kale uu si joogto ah caana uga iibin karo magaaladiisa caanaha lo'da ka waqaalisan magaalooyinka qaarkood geela ka qaalisan uu heli karo marka walaalayaal inta muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmi doona walaakiin Sakariya Cabdullaahi Cali salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh